الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحين كالنا ولا ليال كتاب كيني أها متن الآجرومية وحين سوغارني درسيني السقالات كتابك وحين كهدليني أو أين كدحجرني حرفيدا وحوص ديغو حرفيدا لو غارنا يو حروف الجر أين كجرني حين كهليني من أو لجلنا الاسم المضمر أما الاسم الضمير والمضمر واسكمت وحفرقي هؤلاء حياة مجران ومترادف وحين سجلني أيضا لإسكهاد ليو مني أنيجا يا منا أنجا ويلكو مركو إسكهاد ليو حليه هاي مني قبضو مركا إسكهاد ليو مني labada iyo ragga iyo dumarka markay iska hadlayaan waxay leeyihiin minna shanta ayaa jirto hal wiil hal gabar laba qof rag dumar waxaynu markaa la hadalnay wiil waxaan dhahnay minka waxaan la hadalnay gabar minki waxaan la hadalnay laba minkuma waxaan la hadalnay rag badan minkum waxa aan la hadalnay dumar minkunna ضميركم مركو ياهي ضمير المخاطب كافكا ومبني على الفتح مركا ويلا لهلا يوم من كا ايو نقونا يا كا مبني على الفتح مركي او ياهي ضمير المخاطبة تئنا وحو نقونا يا كي ايو نقونا يا كي وحو نقونا يا مبني على الكسر لكن مركا لهلا يلابو iyo marka lala hadlaya rag badan iyo marka lala hadlaya dumar badan isku si ayuu u xarakeysan yahay oo waxa lana min markii la yiraahdo waxa ka daba imaanaya ku labadii waa ku raggii waa ku haweenkii waa ku wixii dhan marka waxay noqonayaan damiirul mukhadabayn iyo damiirul mukhadabat oo dumar ah iyo damiirul mukhadabiin oo rag ah isku si ay u xarakeysan xarakaadka kaafka mar waa mabniyun cala al-fath waa minka waa marka la hadlayo wiilka damiirul mukhadab markii gabadha la hadlayana waa minki waa mabniyun cala al-kasri laakin marka la hadlayo labo iyo marka la hadlayo rag badan iyo marka la hadlayo haween badan isku si ayuu kaafku u xarakeysan yahay marka adiga waxa leedahay min waa xaraf wax hoos dhigo kaafkuna markasta wuu hoos dhigan yahay guduhu ka soo hoos dhigmaya banaankana mabniyun cala ad-dammi haduu yahay damiirul mukhadabayn haduu yahay damiirul mukhadabiin oo rag la hadlayna waa mabniyun cala ad-dammi sidoo kale markii dumar la hadlayo waa lamid waa mabniyun cala ad-dammi waxay yiraahdeen marka nuxaadu wax lagu kala saaro aynu raadino yaadi labadii hadii la yiraahdo minku oo haweenkii la yiraahdo minku oo raggii badnaa la yiraahdo minku hadda maxaa lagu ogaanayaa oo lagu dareemayaa in laba la hadlayo ama rag la hadlayo ama dumar la hadlayo maxaa lagu ogaan karaa markaabay waxay yiraahdeen minku soo saddexdii ma noqonin ee labadii la hadlayay waa minku raggii waa sidoo kale dumarkii waa sidoo kale soo sidaa ma noqonin haweenka horta nuun aan u yeelno haweenka nuun aan u yeelno oo aan iraahdo minku soo maaha na aan gadal kaga darno maxaa soo baxaya markaasi minkunna ayaa soo baxaysa marka kaafkaas waxaad leedahay marka waa kii lagu la hadlaya dumarka ilaa waxa aynu ku garanay wanuunu calaamatu jamci niswa sidaas aad leedahay waxay yiraahdeen kii dumarka soo nuun uma aanan yeelin kii raggana asagana miim aan u sameeyna asagana kii raggana miim aan u sameeyna asagana muxuu noqday minku soo ma ahayn minkum ay yiraahdeen asagana miimay asagana u sameeyeen kii raggana miimtaasay u sameeyeen minkum way kala baxeen hadda kii waxay yiraahdeen marka labada lagu la hadlayay asagana alif aan u sameeyno
kaas marka alifta si toosa way u sameyn waayeen ila hadda adiga min ku ayaa halkan kuugu taale alif ku darbo si toosa alif loolama xiriirin karo waxay yiraahdeen nuxaadu laa tajidu alifan ilaa wa qablaha fatxa alif ma helaysid alifna ma jirto ilaa fatxa ka horeydo xala sameeyna marka hadda wixina waa minku fatxa ma hayno si alif lagu daraya min ka miya la yiraahdaa hadda alif kaafti oo dama ay saaran tahay alif ma la aadin karo waxay yiraahdeen marka fatxadii aan raadino yiraahdeen marka fatxadii bay heleen hadda waxay yiraahdeen fatxadiina xagee la saaraya marka soo xaraf la saaro uma baahno markaas ay yiraahdeen 28 ka xaraf kamid aan iska soo qaadanay fatxada aan iska saarno miimay soo qaateen fatxadii saareen marka waxaa soo baxday min kuma ayaa soo baxday laakiin ogaada markasta ismigu kaafku ku ogyahay min kum ismigeedu waa kaafka min kunna magaceeduna waa kaafka min kuma magaceeduna waa kaafkaas laakiin miimtaan maxaa loo keensaday wal miimu xarfu cimaadin fatxadan baa lagu tiirshay fatxadan baa la saartay wal miimu xarfu cimaadin wal alifu xarfun daalun cala tathniya aliftanina waxay ku tusinaysaa kaafkani oo ku ah inuu yahay labadii lala hadlay minkum miimteeduna waxay ku tusinaysaa kaafkani inuu yahay damiirul mukhadabiin raggii lala hadlaya inuu yahay min kunna kaafka ku jirana min kunna nuunka ku jirana wuxuu tusinayaa kaafkani inuu yahay damiirul mukhadabaat uu yahay marka dumarkii lala hadlaya marka way kala bixeen marka see loo icraabay marka minkuma min xarfu jarrin والكاف ضمير المخاطبين بالير ألف تتصنيس والكاف ضمير المخاطبين متصل بارز سدح ذبا مبني على الضم بيقادنا يعني مبني على الضم في محل جر بمن كاف كاسي وهوس دغنيا والميم حرف عماد والالف حرف دال حتصنيا على التثنية لبو ألف تتصنيا منكم من حرف جر كاف كفير مرك والكاف ضمير المخاطبين ميم تانا تصنيسا مرك والكاف ضمير المخاطبين متصل بارز مبني على الضم في محل جر بمن والميم علامة جمع الذكور من كن من حرف جر والكاف ضمير المخاطبات نون كدنبانا تصنيو متصل بارز مبني على الضم في محل جر بمن والنون علامة جمع النسوة مركا منكما إيا منكم إيا منكنا كاففك كجرة أيا لغا دونيا قدها إنات كهوس لكتت أو آترادد من أيا كجرت ميمتان دنبا إسكدا منكم كجرتا أو مارتي حرفك من كنا نون تيدا إسكدا منكما ماذا حتى دون تإسكدا لكن كاففك كجرة منكم iyo min kuma iyo min kunna maxalla doonaya kaafkaas in la hoos dhigo ilaa min ayaa gashay marka kaafka waxbaa lagu la hadlaa markuu wiil yahay ka baa la yiraahdaa damiirul mukhaatab ka waa adiga kina waa adiga waa gabar la hadlayo ki waa gabar markaas markuu mabniyun cala al-fath uu yahay waa damiirul mukhaatab markuu mabniyun cala al-kasr yahana waa damiirul mukhaatabati مركو يها مبني على المخاطبين ضمير المخاطبين مركو يهي إيا ضمير المخاطبين مركو يهي إيا ضمير المخاطبات مركو يهنا مبني على الضم مركا كافكو سدح كما بح كاف كان إنا ترى مبني على الفتح مركا دويد كلا هلا يسوى إيا إنا ترى هذا مبني على الكسر مركا قبضنا لهلا يسوى مركا اللبل لهلا يسوى أما الرجل لهلا يسوى أما الضمر لهلا يسوى مبني على الضم كافكو مركا مر يها مبني على الفتح يا مرء يها مبني على الكسر يا مرء يها مبني على الضم منه إمام مرك كي مقنا عرفت وحي يرادين كان مقن وإن لو تجي مقع لوغا هدل منه حرف كي وحوص ديجي لها ومن مقع إلا حوص ديجي لها وهذا أنه إنت أنا نحوها برنين منه هذا إذا وحنو هاي سنة إن لقد منه حندي جرني هذا نوا جدنتاي أيان دهجر لكن مركي نحوه لأجادي إلا برتي منها
إن هدبا أي وحوص لغايدو حصوب حدي هاداني إن لهوص لغايبا إني هوص لغان تهايبا حقاي كهوص لغان تهامركا قده بنانك وحا مبني على الضم حركة سلقا ما بدلو من هأنا لديه ماي من هئنا لما يرادو منه سلو عربيا من حرف جر والهاء ضمير الغائب وكمقا أقو وكمقا والهاء ضمير الغائب متصل بارز مبني على الضم هو سماها في محل جر بمن كذا ويك هوس دغانتاي هادو من ايا هوس دغيس والهاء ضمير الغائب ووحم قنود رغا او مارت لبا متصل بارز مبني على الضم سهو ما هو مبني على الضم في محل وجودها في محل جر بمن كذا من ايا هوس دغيس waxa lagu weydiinaya xarafkii hoos dhigay aaway waa min magaci la hoos dhigay waa ke waa haadan xagee laga hoos dhigay gudaha banaankana mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin bimin minha xarafka wax hoos dhigaya waa ke waa min magaca la hoos dhigaya waa ha oo wada socota maca alifta u dambeeyda maxaa saaran marka waa mabniyun ala sukuun laakiin marka aynu ku aragna minha waxaan leenahay ha way hoos dhigan tahay gudaha ayayna ka hoos dhigan tahay ilaa min ayaa ku jirto minha min harfu jarrin ha damirul ghaibati wa gabar maqan ayada soo la dhihi maayo waa tumaqan damirul ghaibati tumaqan baa la yiraahdaa shardi ma aha gabar inay noqoto waxay noqon kartaa waxaan aqli lahayn ha ku maqan iyo tumaqan lama yiraahdo wiil maqan iyo gabar maqan bal lama yiraahdo maxaa yeelay kan maqan wuxuu noqon karaa waxaan aqli lahayn oo wiil ahayn minhu asaga marka la leeyahay ku maqan minha ayada tumaqan minhuma labadooda laba maqan minhum ayaga kuwa maqan oo lab ah minhunna kuwa maqan oo waxa weeyaan oo dumar ama waxa leedahay lab iyo dhidig inaa kala samaasho minhumna atira wa labki minhunna atirada wa dhidig minha min harfu jarrin ha damirul ghaibati متصل بارز مبني على السكون في محل جر بمن كذا أيا من هوس لجيس أمرك منها منهما إيا منهم إيا منهن وحأي لمتهاي منكما منكم منكن وقابك أنكو سوق هذا محايا ليلا بدي مقنيت وحي نقدين منه رجي مقنا وحي نقدين منه haweenkii maqnaana waxay noqdeen minhu ama waxa tiraahdaa labadii maqnaa waxay noqdeen minhu kuwii labka ahana waxay noqdeen minhu kuwii maaragtay oo dhidiga ahana waxay noqdeen minhu waxa lagu kala saaray kuwii haweenka ah waxa la yiri minhunna kuwii maqnaa haweenka ah kuwii labka ahana waxa la yiri minhum baa la yiri min baa loo yeelay kuwaana minhuma alifti baa loo yeelay waa qaabka aynu ku soo qaadanay minkuma minkum minkunna منهما من حرف جر والهاء ضمير الغائبين والهاء ضمير الغائبين ضمير الغائبين إلا نهي محن كدريمينا ألفتا لبا مقن منهما أيغا ولبا مقن ألفتا شيء إذا سمعن والهاء ضمير الغائبين متصل بارز مبني على الضم مبني على الضم سدح ذا مبني على الضم سدح ذا لبدا مقن iyo kuwa ragga ah maqan iyo dumarka maqan waa isku mid marka waxaynu leenahay minhuma min harfu jarrin wal haa'u damirul ghaibayn muttasilun barizun mabniyun ala ad-dhamm fi mahalli jarrin bimin wal mimu harfu imadin wal alifu harfun dalun ala at-tathniyah wal alifu harfun dalun ala at-tathniyah minhumna maxay noqonaysaa من حرف جر والهاء ضمير الغائبين ورقمقا والهاء ضمير الغائبين ميم تدنبا يا شيخي سمرك والهاء ضمير الغائبين متصل بارز مبني على الضم في محل جر بمن أين لنا في محل جر بمن والنون والميم علامة جمع الذكور والميم علامة جمع الذكور
منهن وحالينها من حرف جر والهاء ضمير الغائبات متصل بارز مبني على الضم في محل جر بمن والنون علامة جمع النسوة مركا منهن يا وحنا ليري يا حروفة يا حرفة من وحرف نون كدنبنا وحرف هذا دحدا كجرت بس أيا مقع اسمح لي هذا ضمير أما مضمر سوء شغلين يهي هذا مقع سوء شغلين يهي وهوس دقين مركات فيرس منهن وحد مدى هذا إن لقدي لكن لقدي ماي محايا من مقع أي قشه وإن لهوس دقو مركا هذا ويهوس دقانت منهن منهم أيقنا من وحرف وحوس دقو ميم كقدالة وحرف هذا دحدا كجرت منهم أيا مقع وإن هوس دقانت مركا هذا الله فيريو أذيقو قرآن كأقرينيو منهم مركا كسامرت waxaad moodaa haadaasi in la goday laakiin waxaad leedahay haadani ma godno min ayaa soo gashay sidaa darteeda haadani way hoos dhigan tahay ayaad leedahay marka xarafkii wuxuu hoos dhigaya muxuu noqdaa maanta minhu marka aan iraahdo oo kale magacii la hoos dhigana muxuu noqdaa haaduu noqdaa haada minhu ku jirto xaguuna ka hoos dhigan yahay gudaha markii aad aragta marka adigoo qur'aan aqrinaya minhu hadda hadhiin haadu waa haa godane waxaad tiraahdaa haadu way hoos dhigan tahayoo min ayaa ku jirta dheh minhaa markaad aragtane hadda min waxbay hoos dhigtaaye magaca ka dambeeya hamoodin in la reebay ee waxaad tiraahdaa mabniyun calaa sukuuni fii maxalli jarrin bimin gudaha ayuu ka hoos dhigan yahay minhumaa ha'deeda hamoodin in la goday waa la hoos dhigay ilaa min ayaa ku jirtay minhum haada ku jirta hamoodin in la goday waa la hoos dhigay ayadana min ayaa ku jirto minhunna haada ku jirta hamoodin in la goday waa la hoos dhigay ayadana waxaa ku jirta min ayaa gashay marka magaca min ka dambeeyo lama fiirinayo xarakada saaran la fiiri maayo waxa adiga ku muuqanaya la fiiri maaye waxa la leeyahay min magaca ay gasho see la yeeli jiray waa la hoos dhigi jiray sidaa darteeda min waxa ka dambeeya markasta way hoos dhigan yihiin la fiiri maayo adiga sida ay kula tahay la fiiri maayo shaqalka adiga ku muuqanaya la fiiri maayo waxa la fiirinayaa min magaca ka dambeeyo ma xukmuhu see loo shaqlaa horta waa la hoos dhiga hadleeda marka waa la hoos dhigaa marka tiraado waxa ku soo baxayo min waxa ka dambeeya in la hoos dhigay marka darsigeeni halka ayuu ku siman yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh